miyuu soo dhawaaday waqtiga la geli lahaa imtixaanka ma kugu adag yihiin maadooyinka aad dhiganayso guusha imtixaanka iyo helitaanka dhibco aad u sareysa waxay u baahan tahay inuu ardaygu wax u diraaseeyo si laba jibaar ah iyo inuu xooga saaro diyaarinta casharada laakiin ardayda qaarkood waxay dhibaato kala kulmaan kala tagsanaan baahsan oo ka soo wajahda diyaarinta casharada taasoo saameynaysa buundada uu heli lahaa waxaan doonaynaa inaan guul iyo horumarin xaqiijino sidaas darteed waxaan ardaygu kuu soo gudbinayaa habab iyo tilaabooyin kaa saacidaya inaad wax u diraasaysid qaab saxan qodobka koowaad si fiican u seexo saacado dheer oo aad wax diyaarinaysay shirkaagu wuxuu u baahnaanayaa in uu nasto si uu firfircoonidiisii dib ugu soo ceshto waana arrinta ay khubaradu ku talinayaan in ay laga maarmaan tahay inuu qofku seexdo 8 saac maalintiiba ama inuu seexdo 8 saac 24 saacba sida uu cilmigu xaqiijiyay hurdada waxay firfircooni gelisaa maskaxda xoojisaana xasuusta waxayna kaalmaysaa xifdinta iyo dib u soo celinta macluumaadkii ay maskaxdu xifdisay qodobka labaad diyaarinta saacadaha subaxii sida lagu muujiyay baaritaan ka soo baxay jaamacadda Harvard waxay ku tiri shakhsiyaadka xilli hore soo toosa waxay ka natiijo fiican yihiin xagga shaqada iyo xagga waxbarashadaba shakhsiyaadka xilli dambe soo kaca maxaa yeelay jirku saacadaha subaxii heerkiisa firfircooni ee ugu sareeya ayuu ku jiraa taasoo u ogolaanaysa inuu si xoogan uu wax u diyaariyo haddaba isku day una nidaami waqtigaaga in aad xilliyada subaxii aad wax diyaariso qodobka saddexaad ku bilow diyaarinta maadooyinka fudud waxaa tol ahaan ardayda loo siiyaa in ay marka hore diyaariyaan maadooyinka fudud si uusan walwal iyo baqdin uga gelin maadooyinka adag isla waqtigaasna uu dareemo inuu wax xifdin karo markii la gaaro dowrkii maadooyinka adag maskaxdu waxay tahay mid la qabsatay xifdinta taasoo shaqada ka dhigaysa mid sahlan ama qodobka afaraad xog saaridda hal maado mar qura ha wada diyaarin laba maado tani waxay kuugu sababaysaa kala tagsanaaya inay ka hor istaagto in aad maadooyinka u diyaarisid si miisaan leh tan ajligeed waxa waajib kugu ah inaad xoog saarto hal maado markaad dhamaysidna aad u gudubto tan kale habkani wuxuu fiicnayn karaa qaab diyaarintaada haddaba ha ka dhigin markaad maadooyinka diyaarinaysid in aad laba maado aad isku mar wada diyaariso tani waxay noqonaysaa in ay maskaxdaadu ay hal maado ay xoog saari weydo oo ay u janjeedho hal maado dhankeeda qodobka shanaad nidaami waqtigaaga diyaarinta casharada qaab aan habaysnayn ma ahan mid aad guul ku gaarayso sidaas awgeed waxaa laga maarmaan ah inaad u nidaamiso waqtigaaga oo aad daqiiqad walba ka mir dhalisid oo aad ka faa'iidaysatid haddaba xadid waqtiga aad maado walba diyaarinayso nidaamkani wuxuu kaa mamnuucayaa inaad wax dib dhigato wuxuuna kuu siyaadinayaa inaad xoog saarto oo aad si fiican u xaqiijiso guushaada haddaba waxaan kula talinayaa ardayow in aad u nidaamiso waqtigaaga qaab saxan oo aad ka faa'iidaysan karto oo aadan ku dareemi karin caajis qodobka lixaad ka fogaanshaha cabitaanada hurdada kaxeeya cabitaanada hurdada kaxeeya badanaa waxaa ka mid ah kafeyga oo kale cabitaanadan oo kalena waxay ku siinayaan awood khaas ahaan subaxii markaad soo toosid laakiin ardayo ogow cabitaanadani waxay leeyihiin saameyn negative ah saameyn aan fiicnayn ayay kuu yeelan karaan waxayna kuu duudi karaan ama kuu diidayaan hurdada inaad seexatid oo kale taasoo ardaygu badan uu ku fikiro inuu cabitaanadan cabo oo uu mataqaanaa waqti badan uu soo jeedo si casharada u diyaariyo laakiin ardaygu ogow habkani ama cabitaanada ay isticmaalayso waxay ku dareensiin karaan xaalad xun oo nafsiyan ah haddaba isku day in aad maalintii cabtid hal koob oo kaliya oo cabitaankaas ah
waa haddii aad ka fursan weydid oo aad ka hari weydid inaad cabtid. qodobka 7aad qaadashada cunto kugu filan. maskaxdu si ay u gudato waajibaadkeeda feker, baaritaan, xifdin iyo xasuusasho, waxaa khasab ah inay hesho cuntooyin faa'iido leh, gaar ahaan cuntooyinka firfircooni gelinaya maskaxda, xoojinayana xasuusteeda, iyo cuntooyinka kordhinaya awoodda maskaxda ay leedahay iyo baraarugsanaanteeda. haddaba cuntooyinkaas waxaa ka mid ah toonta, khudradda, miraha, shukulaatada iyo caanaha. kuwaasi waxay muhiim u yihiin jirkaaga. cuntooyinka hadda soo sheegnay muhiim marka hore waxay u leeyihiin jirkaaga iyo awoodda uu yeelan karo inuu waqti dheer wax diyaariyo. cuntooyinka hadda shukulaatada kale ardaydu markay imtixaanka galayaan way sii qaataan shukulaato sababtoo glucose bay leedahay, faa'iido leedahay, waxay u leedahay faa'iido badan maskaxda. haddaba ha iloobin inaad marka imtixaanka gali rabtid inaad hore isoo qaadato cuntooyinka glucose leh, macnaha sida shukulaatada oo kale, buskudaha qaar kale, buskudaha qaar ba waxay leeyihiin mataqaana glucose, kuwaasna ha iloobin inaad sii qaadatid ama aad cuntidba. haddaba ardayow si habboon uga faa'iidayso qodobadan, degdegna u bilow inaad hirgelisid ku dhaqmidooda iyo inaad adeegsatid inaad samaysato jadwalkii aad raaci lahayd si aad imtixaanka u hesho dhibcihii aad ku haminaysay. haddaba haddii ay tahay markii kugu horeysay oo aad soo booqatay channelkan, fadlan subscribe garee, hana iloobin inaad like garayso kana mid noqo macaamiisha nagu taxan.